marka ugu horeysa waxaan ka bilaabayaa wasiirada dowladda koonfur galbeed wasiirka arrimaha gudaha Cabdullaahi Xasan iyo wasiirada kale ee nala jooga xildhibaanada sidoo kale dowladda koonfur galbeed maayarka magaalada Baydhabo Cabdullaahi Watiin odayaasha dhaqanka aqoonyahanka dhalinyarada iyo haweenka waxaan rabaa inaan idinku salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan ka bacdi waxaan la qabaa saaxiibka Yaasir agaasimaha macadka Iiraan mahadcelinta iyo cududaarka uu ka bixiyey ka qaybgalka madashan oo runtii laba jeer baaqatay waqtigii loogu talagalay arrimo la xiriira logistics-ka iyo safarkii aan soo ahayn intaas kadib sida la socotaan macadka Heritage waa macad cilmi baaris oo macad Soomaaliyeed ah oo xaruntiisa ay tahay magaalada Muqdisho laakiin runtii ka shaqeeya gobolada dalka Soomaaliya oo dhan iyo sidoo kale geeska Afrika Soomaalida degan inay u abuurto cilmi baariso taabanaya runtii duruufahooda iyo dhibaatooyinka sida gooniga ah markaas ay runtii wajahayaan talooyinna ay isweydaarsanayaan oo dadka Soomaaliyeed imaanaya iyo madaxda meelaha go'aan qaadashada jooga inay la wadaagaan aragtiyada kasoo baxda cilmi baarista iyo sidoo kale inay abuuraan madalo noocan kala ah ay maaragtay dadku isku wadaagsadaan aragti wadaagna ah fikradaha iyo xalalka ay u arkaan markaas inay horumarkooda iyo dowlad wanaagooda iyo ay ka shaqeeyaan amnigoodaba qorshaha macadku waxa weeye dadka Soomaaliyeed markasta ay joogaan inay helaan madal noocan oo kala ah madaxdooda iyo shacabkuna isku dhex galaan is aragti wadaagsadaan runtiina waxyaalaha ugu wanaagsan oo qayb muhiima ka qaata marka laga hadlayo dowlad wanaaggan waxa weeye madalo noocan oo kala ah in la abuuro space noocan oo kala la abuuro dadkuna ay madaxdooda runtii kula kulmaan oo ay maaragtay runtii la wadaagaan su'aalaha iyo doodaha ay qabaan marka macadku wuxuu ku faraxsan yahay asagoo sanadkan qorshihiisu ahaa inay qabtaan maamul goboleed ay ku qabtaan madalo noocan oo kala oo dadka Soomaalida gaaraan inay maaragtay aysan noqon meelo badan oo waxaa jira marka qaarkood ay dhahaan dadku ma gaaraan macadku ma gaaro meelaha gobolada ma gaaro marka taasaa keentay inaan qorshaha ku darsano in sanadkan aan ku qabano magaaladan Baydhabo dooda runtii aad waqtigeeda loo joogo oo ah fahamka golayaasha deegaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliyeed iyo sida lagu hirgelin karo runtii waxay ka mid tahay meelaha ugu muhiimsan oo dowlad wanaagga iyo maaragtay sidoo kale dhismayaasha golayaasha deegaanku ay ka hirgaleen faa'iidooyin fara badanna runtii ka faa'iiday sidoo kalena caqabado si gooni u wajahayaan ay jiraan markasta oo ay fursad jirtana waxaa jirta caqabad marka madashan muhiimadda ay leedahayna waxa weeye dadku inay fahmaan marka laga hadlayana dowlad ama dad maaragtay meel isku yimid hanaan dowlad ee leh waxyaalaha ugu muhiimsan ah heerarka dowladnimada waxaa asal ah dowladda hoose golayaasha deegaanka maadaama ay dadka u dhow yihiin maadaama ay runtii keeni karaan adeegyo wax ku ool ah oo dadka maaragtay baahidooda taabanaya adeegyo hufan oo tayo leh marka loo fiiriyo dowladaha kale hadday noqoto state levelka iyo sidoo kale federaalka marka aasaaska in laga soo dhiso dowladnimada waxay runtii fududeynaysaa dadku inay helaan adeegyo hufan hadday noqoto adeegyo ammaan hadday noqoto adeegyo caafimaad waxbarasho iyo fursado maaragtay dhaqaale intaba marka kulankan wuxuu ahaa kulan runtii aan rabno inaan madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dadka shacabka iyo dhaqanka ay isku arkaan ay maaragtay ku sheekaystaan sida maaragtay hore loogu wadi karo dadaaladaasi meelaha aan laga hirgelin hanaankan maaragtay golayaasha deegaankana sidoo kale la gaarsiiyo intaasaa ugu muhiimsanad kulankani waxaan rabaa inaan idinkaga mahadceliyo doodo xiisa badan baa jira oo runtii panel discussion dad kala duwan ay ka qaybgalayaan oo dowladdu ka mid tahay dad aqoon-yahanaan oo macadkana ka tirsan ay ka mid tahay macadku wuxuu daabacay cilmi baaris sanadkii lasoo dhaafay 2023 cilmi baaristaas oo runtii si gooniya loogu eegayey fursadaha iyo caqabadaha ka jira dhismaha dowladaha dowlad goboleedka gaar ahaan golayaasha deegaanka marka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo kasoo qaybgalkiina waxaan sugaynaa oo ka faa'iidaysanaa khubrada halkan imaan doonta oo aragtidooda iswadaagsan doonta wixii su'aalo oo ay qabaan dadka anigu waxaan aad u jeclaan lahaa waqtiga panelku inuu
fursad fiican oo baxsan siiyo dhalinyarada iyo aqoonyahanka meesha isugu yimid si ay madaxda u weydiiyaan su-aalo ku filan aad iyo aad u mahadsantihiin waqtigu waa iska kooban yahay sharaf bay ii tahay inaan magaalada Baydhabo imaado oo maanta maaragtay kulankan muhiimkan ah qayb ka ahaday. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.